sanadkan 2025 waa sanadka ugu badan Soomaalida saragta la dhiilay Cabdullaahi wuxuu doortay in interview uu ka maro India maxay tahay khiyaanada meesha ku jirto u dooratay India waa hagaag saaxiibayaal asxaabta hawada nagala xiriirtay soo dhawaada barnaamijkeennii ku saabsanaa DV Lottery ayaan maanta waxaan ka wareysanaynaa aan wada falanqeynaynaa aniga iyo saaxiibkayga Cabdullaahi oo kamid ahaa raggii nasiibka u yeeshay in Mareykanka ay ku imaadaan DV Lottery-ga Cabdullaahi de maalmihii wacnaa ee dadku wada sugayeen ayaa la joogaa soo dhawow oo maxaa ka leedahay arrimahaas waa dhawahay Cabdisalaan Saaciye horta waxaa u maleysaa maalmihii wacnaa xilliga ku habboon in la qaadi jiray way soo dhowdaa marka waxaas leeyahay maalmihii wacnaa baa soo dhow okay horta adiga DV Lottery aad ku imaatay waa la wada ogsoon yahay laakiin maalmihii dadka ay wada sugayeen wax yar ayaa ka dhiman waxaan ka ahayn geeridii maxaa is leedahay sanadihii hore iyo sanadkan way ku kala duwan yihiin horta niyo lottery sanadkii u horeeyay aan galay sanadka hadda waa ka duwneed okay marka lottery sanadba si waa okay sanadkii yani aan ku soo baxayay tirada way badneed okay sababtoo ah sanadkii hadda 2024 dad yaraa la doortay ilaa 600 meelahaas gaarayay ilaa 900 laakiin aniga sanadkeena 3000 oo sii dhaweyn okay marka waxay la tahay sanadkan 2025 waa sanadka u badan dadka la dooranayo Soomaalida sidoo bari dadka qaar waan ii jabeen oo waxay kana jabsan yihiin baasaboorada iyo arrimihii Donald Trump marka anigu waxa aaminsanahay sanadkan 2025 waa sanadka ugu badan Soomaalida saragta la dhiilay sida anigu aaminsanahay maxaa u dhahdaa marka sababta u dhahay waxay tahay 2022 dad badan oo ani aqaanayo horeeyay oo wadanka ku imaaday aan xoga ka wareystay waxay dhaheen sanad walbo 2022 waa yareedo dadka oo la sala tagriyay sanadkii ku xigay 2023 anaga ku jirnina waa dadkii salagtii u badnaa aan noqonay 2024 ana indhihi ku arkay okay dadkii la doortay waa 900 hatta whole number-ka hatta markii laga jaro waxay maanaysaa 600 aad weyn hada dadka aad waxay uga walwalsan yihiin arrimaha Donald Trump iyo banki iyo marka waxa la leeyahay niman yahow banki amuuna saameeyaa maxay kula tahay horta niyo dadka xareystay inay wareystaan waxa ka wanaagsan dadka imaanaya okay kulli ani hadda ana haska soo qaado dadka asxaabtida u hadlaa sax asxaabtida maanta dadka Mareykanka imaanaya ma ogo aad weyn sida caadiga ah aniga wadanka joogo aniga hadda u hadlo boqolaal oo Soomaali ah imaado oo baasaboor Soomaali ku imaadaan okay marka dadkii waxa ka dhacsan sida hadda maalmihii bilihii u dambeeyay bisha hadda u dambeysay kale waxa soo shacabaaday Soomaali in ay tahay laga reebay lottery-ga baasaboorka Soomaali ban la saaray okay dadka ma reality markii laga hadlo horta wax ban la ma jiro shalay dhalinyaro saaxiibada ay imaadeen weli ban oo sax ah la sameeyay ma jirto laakiin aniga marka u hadlo teamkeyga oo lottery-ga wax ban la ma jiro rajadiina waa sareysaa laakiin yaa dhulka loo dhigin hore loo qaado waxyaabaha inta joogtay India aad aragtay qaladaadka ugu badan oo la sameeyo maxaa kamid ahaa wallahi daarantu ka hadlo qaladaadka ugu badan Soomaalida ee ku dhacda waxa waaniyo documentigooda okay waxa la yaabaa markuu lottery xareenay documenti inuusan ka fiirsanin mar walba aad documenti xareenayso documentiga ku yaala gurigaada ku daba qabo sax oo wixii iswaafaj waxa arkaysaa qof aan magaciisa wuxuu ka bilaabanaa C okay kaba soo qaata kala Cabdullaahi okay af Ingiriis markii loo ileen dad saba ajaaniba hortagaysa Soomaha laga qaadanaa qofkan oo kala baasaboorka waxa u qoran Abdullaahi
shahaadadana waxaa ku qoran cabdulaahi oo siiya u qoran lootirigana wuxuu ku apply garaystay cabdulaahi sababtoo ah safaaradda markaa u tagtid safaaradda waxay raadinaysaa jaanis yar ee kuu cuni karto ilaan dadkii la rabaa in la kala dhimo waa la kala yareynaa sababtoo ah waxaa laga yaabaa sanad walba waxaa la aqbalaa 122,000 ama 123,000 fiisaha meesha yaalana waxaa waaye 55,000 55,000 oo fiisi ah iyo 122,000 oo qof ah mar milyanisay gaartaa oo la rabaa marka in la kala yareeyo sababtii waxaa lagu kala yareynaa qofkan xarafka adi ah meesha wax kuu qoran dukumentigaada lagu yareynaa matalan waxaa arkay aniga wixii ugu yaab badnaa arka waxay ahayd nin dhalinyaro ah waxaa ku arkay dhalashadiisa dhalashadii waxaa ugu qorneyd inuu dhashtay 21 January waxay ugu qoran tahay baasaboorka loo tirigin waxaa ugu qoran 20 January maxaa marka maalintii uu apply garaynay ma ogeen miya isaga baasaboorka ma horeeyey baasaboorka horeeyey soo ma wanaagsaneen marka inuu iswaafajiyo baasaboorkii mar walba dukumentiga ku yaala lagu daba qabtaa anaga bilaadin aan nahay wax waa qaldi karnaa laakiin waa qaladkee waa inaan ka fiirsanaa dee waxaa la isdhihi karaa saxaabta ay isdhihi karaan cabdulaahi wuxuu doortay in interview uu ka maro india maxay tahay khiyaanada meesha ku jirto ood u dooratay india walaahi khiyaano oo ani aawata ma ahayn sida caadiga rigaalada marka laga hadlo macnaha maxaad ku dooratay aniyo horta waa meel walba hor dadka horeyaa la wareystaa aniga dadkii horeeyaa meesha waxay dhaheen meesha inay wanaagsan tahay wixii markaas u ogaadana waxaa ii caddaatay meesha inay wanaagsan tahay haa sababtoo ah markii loo barbar dhigo safaaradaha kale lama midna sababtoo ah sanad walba waxaa la qiimeeyaa fiisooyinkiisay ku bateen fiisooyinka badan meesha ka baxeen markii laga soo tagana dadka waxaa jiro tutunjiyi dad ku hara dad ka baxa iyo dad dhulka madaxa loo daray safaaradda qaar waxaa ku su-aadayay konsulaaro oo confuse macaraysan weliba isla marka go-aanka gaaraya mid waxaa ka war heleeba saaka markaa u tagtid nin faraxsan aa u tagtid assalaamu calaykum haay markuu ku dhaha hay waa dhuubin aa u jawaabaysa maahane magacaada markaas hore inuu abruufkaa siiyo warqada kuu saxiixa midna maanta inaad taagnaani kabacdi inuu ku siiyo waa la yaaba inuu kuu diido waa la yaaba midna markaa soo hor istaagtid isla markii hadii dhan muu ku wareysanayaabo aa soo istaagtid dhaarta oo kuu bilaabo oo kuu dejiyibo warqadaada rejected ha diyaarsan ama warqadaada abda oo tutuwanjiga marka safaaradaha hindiya ani markaa u fiiriyo asia markii la hindiya u wanaagsan african markii laana tanzania wanaagsan sababtoo ah hindiya qofka interviewgiis markuu wadanka waxbarasho ku galo ama caafimaad oo ku galo mar walba su-aal waa ku ag taalaa laakiin su-aashaas inaad ka jawaabtid waa wadanka maxaa u maadaa luu leeyahy hindiya maxaa kasoo doontay india caafimaadaa dhaadamo intay ku xanuunaysay so waa in marka warqad caafimaad iyo dhakhaatiirtii afaaro inaad keentid oo diyaarsatid saxan waa inaad ku hadashaa haddii waxbarasho aad dhahdana waa wixii haddaa waxbarasho aad dhahdeed jaamacadee dhigataa maxaa barataa caddeynaa lagaa rabaa sooma caddeyn xataa markii laga soo tago su-aalihii lagu weydiinay iyo hadduu kaa shakiyo wuxuu ku leeyahay la soo bax warqadda jaamacadda aa ku dhiganaysa waxaan u garta marka horeba kuma weydiinayaan su-aalaa lagu weydiinaya marka khalkhal iyo waxa lagaa dareemo wuxuu ku leeyahay dokumentiga keen marka marka safaaradda mar walba adiga markaa u tegaysidba haddaa dokumenti faak aa wadatid haddaa dokumenti saxaan wadatid adoo jaakeena oo qoslaa dhol cadeynaa gal yaa lagaa dareemin indhahana kuma kontanta ays low aad oo kaa dareemo in aad tahay qof cabsanayo kale ajaanibta qofka markay arkaa inuu cabsanayo qofka inuu waxba haynin ogyiin waa aragta hadda wadanka aan joogno
marka interviewga shaqada u mari sidoo kale dadka inaad documenti aa wadatid iyo waxaas ma qiimeynayaan waxay fiirinayaan waxaa u mahday interview shaqo soo maaha documentiga dhan ma la weydiinaya documentiga waxaa laga yaabaa sharciyada waddanka laakiin haddaad dhahdo anigu meel hebel markaa xariisanayso meel hebel aa kusoo shaqeysaan waa adoog soo shaqeyn oo kale hadhow markaa aa wajahey sidoo kale documenti kuma weydiinaya waxa walba indhahaadu ka qiyaasanaa haddii indhahaada cabsi iyo su-aalihi qalqal iyo waxaas haddii lagaa dareemo wuxuu ku leeyahay gubataa waay nakistaan maa loo leeyahay aada weyn aada u mahadsan tahay cabdulaahi mar kale ayaan wada kulmi doonaa oo aan ka wada hadli doonaa markii la gaaro maalmihii wacnaa bisha 5aad markii la gaaro maalmihii wacnaa way soo socdaan yes maalintaas aan isku imaanaynaa mar kale oo aan ka wada hadli doonaa qof walba soomaalina waxaan dhihi lahay guul waan insha allah baalkaana laiskuma xiro ewerna waana ku kartaa waana guuleysan kartaa mar walba labadii dhinac filo mar walba dhexda la u taagna hadii inta kuu soo baxday inta la deynta soo baxday inta aad